waxaan halkan maanta idinku soo gudbinayaa dhowr qodob oo ka tarjumaysa mowqifka dawladda Soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dhabta ah ee ka jirta qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada Jubbooyinka. waxaana nasiib darro ah warar ka soo baxay saxaafadda qaarkeed inay si khaldan u tarjumeen cabir xunna ka bixiyeen xaaladda dhabta ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliyeed iyo saxaafadeedkii shalay laga soo saaray maxkamada. wararka sheegay in dawladdu qabto mowqif ka soo horjeeda dalka Kenya dadaalka Kenya ee ka wada gobollada koonfureed waa been abuur ka fog xaqiiqada dhabta ah. labada dawladeed ee Soomaaliya iyo Kenya waxay wada jir u soo saareen war murtiyeed communique bisha Oktoobar 18 kaas oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho. dawladda Soomaaliya waxay mar kale ku celisay shalay oo taariikhdu ahayd Oktoobar 26 inay ku taagan tahay kana leexanayn is-afgaradkii usbuuc ka hor ay la gashay wadanka walaalaha ah ee Kenya. ujeedada qoraalkii shalay waxay ahayd in meesha laga saaro wixii madmadow ah ee soo dhexgalay is-afgaradkii Oktoobar 18 waxaan soo saarnay bayaan taageeraya xoojinayana is-afgaradkii hore. nasiib darro waxaa dhacday in saxaafadda qaarkeed si khaldan uga warbixiyeen una tarjumeen. labada dawladeed ee Kenya iyo Soomaaliya waxay leeyihiin mowqif midaysan ee ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxaan hoosta ka xariiqnay in labada dal ay iska kaashadaan ka hortagga colaadaha ay wadaan kooxda argagixisada ah ee Shabaab. dawladda Soomaaliyeed waxay u aragtaa dadaal kasta oo ku wajahan Al-Shabaab taageero loo fidiyay shacabka Soomaaliyeed waxaana ka taraysa xoojinta amniga Soomaaliya, amniga Kenya iyo amniga geeska Afrikaba. dawladda Soomaaliyeed waxay ammaan u jeedinaysaa ciidamada Soomaaliyeed ee horseedka ka ah la dagaalanka lagula jiro nabadiidka kooxda Al-Shabaab si ay uga xoreeyaan gobolada ay xoog ku haystaan gacantana ugu soo celiyaan shacabka Soomaaliyeed. dawladda Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa taageerada wadamada IGAD iyo AMISOM ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada. qoraal waxa weeye war saxaafadeedkii shalay waxay ahayd bayaaninayno mowqifka dawladda Soomaaliyeed sidoo ahaa in loo tarjumo ayaan loo baahan yahay. waxaana ku cadayd inaanu leenahay iskaashi dawladda Kenya aan kula dagaalamayno kooxda argagixisada. cadowbi ku yihiin ayaga annana cadowbi nagu yihiin. waxaad la socotaan dawladda Kenya in dhibaatooyin badan ay u geystaan Al-Shabaab. waxaa laga soo afduurtay dad xiisayaal ah. waxaa la soo afduurtay dad ka shaqeeya bini'aadanimada. dhibaatooyin badan baa loo geystay. dawladda Kenya xaq bay u leedahay inay iska difaacdo Al-Shabaab. sidoo kale Al-Shabaab anaga dhib bay nagu hayaan. dadkii 2 milyan oo Soomaali ayay gaajo ku dileen. dad badan oo Soomaali ayaa u qaxay wadamada dariska ah sida Kenya. maanta magaalada saddexaad ee u weyn Kenya waa xero qaxooti Soomaaliyeed weeye. marka labada wadan waxa ka dhaxeeya walaaltinimo, waxa ka dhaxeeya saaxiibtinimo, waxa ka dhaxeeya is-afgarad ah in la dagaalamo cadowga. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa baaqii 5 Juulaay 2010 wadamada IGAD ay yeesheen oo ah in IGAD ay meel uga soo wada jeesato la dagaalanka argagixisada. dadaalka dawladda Kenya ee gobolada koonfureedna kaas ayuu ku wajahan yahay. ciidamada dagaalamaya ciidamada Soomaaliyeed weeye, militarigeeni weeye, ayaga horseed ka dagaalka, ayaga way kuwa dhimanaya. laakiin dawladda Kenya haday nagu taageerayso la dagaalanka argagixisadaas si aan uga guuleysano shacabka loogu sameeyo maamul iyo kala dambeyn cid nagu siinaysa ama Kenya ha ahaato ama IGAD ha ahaatee waa soo dhaweynayna. waxa weeye dagaalka waxa horseed ka ciidamadeena. saan idin sheegayna ciidamada Kenya waxay taageerayaan ciidamada Soomaaliyeed. waxay ka taageerayaan logisticska, waxay ka taageerayaan tababarka. ciidamada Soomaaliyeed ka dagaalamaya meesha gudaha Kenya ayaa lagu soo tababaray. gudaha Kenya ayaa lagu soo tababaray. marka waxa naga dhaxeeya is-afgarad ah in la dagaalano cadowgan meel uga soo wajeesano wayna nagu taageerayaan waana soo dhaweynayna. mowqifkaygu waa cad yahay. dawladda Kenya taageerada ay u fidanayso ciidamadeena waa soo dhaweynayna. dabcan haddii Al-Shabaab xamar baan kula dagaalamaynaa waxa naga taageeraya waa ciidamada AMISOM. ma garatay waa ciidamo Kenya ee Burundi u dhashay weeye. waa ka saaraynaa xamar, Jubbooyinkana waa ka saaraynaa. halkan hadday nagu taageeraan Uganda iyo Burundi xaggana ay Kenya nagu taageerto wax wanaagsan weeye waa soo dhaweynayna.